Ciidanka xoogga dalkeena ayaa howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen uga saaray maleeshiyaadka argagixisada tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa howlgalka si wadajir ah u fuliyay ururada 83 iyo 84 guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka, iyagoo nabaddiidka ka saaray tuulooyinka Cabananey, Beeraha Baay, Siigaale, Malabla iyo Buula Arundi oo dhammaantood hoostaga deegaanka Janaale. Ciidanka xoogga ayaa sidoo kale burburiyay goobo ay maleeshiyadu gabaadsanaysay kuna kaydsan jireen baadda ay shacabka masaakiinta ah sida qasabka uga qaadan jireen. Amniga guud ahaan tuulooyinkii ay cagta mariyeen ayay xaqiijiyeen ciidanka, waxayna goobaha hawdka ku sii baacsadeen firxadka argagixisada. Geesiyaasha xoogga oo u taagan badbaadinta shacabkooda ayaa inta ay ku jireen fulinta howlgalka waxa ay fashiliyeen miinooyin ay argagixisada arxanka daran ku aaseen waddo isku xirta deegaanada Buufow Bacaad iyo Janaale oo ay doonayeen in ay ku gumaadaan shacabka. Waxaase dhagartooda ka hortagay soo majeestayaasha qarankeena. Howlgalkan culus oo fulintiisa lagu guuleystay waxaa hogaaminayay taliye ururka 84 guutada 14 Oktoobar laba xidig Cali Mahdi Beerdiide. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa abaanduulka ururka 83 isla guutada 14 Oktoobar ee ku sugan deegaanka Janaale Maxamed Saciid Maleele. Howlgalkan waxa uu qayb ka yahay kuwa culus oo ay ciidanka xoogga ku baacsanayaan argagixisada firxadkooda gabaadsanaya deegaanada dhaca dhinaca xeebaha iyo howdadka ee gobolka Shabeellaha Hoose.